fiidiyoyada caruurta ay fiirsadaan la fariiso daawo haddaynan ka hadlin haddaynan hadda u sheegin caruurteena haddaynan toobgeedaan intaan ka hadlin already waa laga hadlooyaa okay haddaad ogeen waxyaalo badan oo kaa yaabsiyaad arkaysaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله لهي سودة وهذا ولا شيء وايد بل بدون كجبتي محرجنا وقتنا سنكوتاي مركز داوني في فيديو قاعد تكسر هذا channel فضل هذا وحسبت حكا عد سنية ماشي هو سبسكرايب كل نوتابو لايك وصار إن شاء الله دور فيدمو مركول عليه إن ما أنت قضب كهربين كهلو وحكى معها وحويان قضب أنا ودنا قصي ويان إن قضب كان قصيين وحواي والولكا إن أدون وينها ملوبا نجهزتو ودنعة عرورتا يشي كذا سعته oo dadka sanka maskaxda meel walba nalka gelinayo oo nulku qasbayo in maaragtay aan aqbalno dadkan noloshooda ka duwan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala suu dadku u abuuray magacoodana ma rabin inaan soo qaado oo qodobkaanetana ma aha qodob maaragtay in aan attention usoo jiidana ma aha waxaan rabaa inaan hooyo walba u walwalsan aan dhaho xaqa u leenahay inaan walwalsannahay xaqa u leenahay in maaragtay aan caruurteena aan ka badbaadino inta ka badbaadin karno. waxaan rabaa inaan idin sheego walaalahay hal shay ka maaha laba shay ka maaha sheekooyin badan waa dhaceen way dhici doonaan waana soo socdaan waana lagu jiraa waana la arkaa marka waxaan rabaa inaan siiyo hooyo walba oo Soomaali ah degniin oo ah qof walba gurigiisa ku dhici kartaa degniin oo ah caruurtaada la sheekayso caruurtaada la hadal caruurtaada u sheeg waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala suu abuuray hadduu damcaynu iska bedelo aakhiro waxa u dambeeyo noloshiisa waxa u dambeeyo haddaynan ka hadlin haddaynan hadda u sheegin caruurteena haddaynan toobgeedaan intaan ka hadlin already waa laga hadlooyaa okay haddaad ogeen fiidiyoyada caruurta ay fiirsadaan la fariiso daawo waxyaalo badan oo kaa yaabsiyaad arkaysaa inaan walwal ku geliyo ma rabi ولا شيء نجعل هاي لكنسه أنا عادي أقول نوعين أنا يروح تدا إذا شيء عروتي ذي وين كان مركان كورني كرتون قلنا في السنجري because I don't know أنا نفسي تدا جعل كرتون كا هذا الشيء كوي كان يرى كرتون بما في السنة محيا لجوري تي في قوي كوي إن سكرين كاس نويالو وحنكو في السنة وحويان سما ذا يوتيوب كي وحاسوا أن الرير كنا أصله في السنة أما جيبي وحاسوا كعياران نشويدا oo educationalka ah ama islaamikada ah waa u ogolaanay fiirsadaan background ku maqlaya sometimes way jirtaa gameka ku fadhiyaan waxyaalo aanan maaragtay ka warqabin fiirsanayaan aan ku qabto which is cartoon oo maaragtay caruurta oo fighting waxaas ah daadeed ku jiraan aniga caruurteedu waxa weeyaan qofta ugu yar double digit noqotay saan hore idinku sheegay 10 jir weeyaan gabarna weeyaan marka daadeeda waxyaalo badan oo waxa jirto kartoonadaas ay fiirsanayso waxa weeyaan kartoono maaragtay maxaa la dhahaa Power Rangers iyo kartoono oo strange ah waa naftirkooda runta idin sheego aan waxaan ku dhahaa haddaysan hooyo ku ogolaanin doesn't mean that markaa free time kaysatid aad computerka ku fadhidin inaad aadi kartid still rule still applies okay free time kaaga waa la ciyaari kartaa game saaxiibadaada waa la ciyaari kartaa walaalkaaga ma jecli online game in lagu ciyaaro laakiin waxa jirta game oo ay invite gareynayaan asxaabtooda kaliya oo from the school ka ah marka here and there waa soo koristaaga kuwa weynka Soomaha da qaarkood markay gaaraan waxa waaye hands off haddaan Soomaali nahay waxa waaye caruurta aad iyo aad baan ugu dhex jirnaa aad iyo aad baan waxaan rabnaa inay anagii qasab ay noo dhageystaan qaarkood ma dhageysanayaan because the more aan ku qaylino the more ay sii xirmaan the more ay noqdaan inay waxba ku sheegin marka inaan atartu akhrino waa inaan ducada u badino waay inta hadli karan inaan hadalno waay inta wax u sheegi karna inaan u sheegno waay marka da'da aniga oo hadda oo aan isleeyahay oo ilmaha maskaxda laga qabsan karo waxa weeyaan wixii 10 sano iyo ka yar marka haddaad tahay hooyo caruur yar yar haysatay please dadaal islamic school aan la cararayaa laakiin video kastay fiirsan karaan wax kastay sameyn karaan online ki wax walba kala socdaan haysdihin cunugaas waxba kama warqabiyo wax walba ka warqabaa
islamic school ku aadaa waxaad is leedahay waxyaalaha qaarkood ma fiirsado laakiin wuu fiirsadaa dadka qaarkood social mediada markaad maaragtay aabyada qaarkood ilmaha ay gameka ku ciyaaraan waxa ku jiro niman ama naago maaragtay oo sameeyaan dadka maaragtay dadka la soo xiriiro oo ilmaha maskaxda ka qabsan karo wax u sheegi karo maalin dhaweed waxaan arkay dhowr video oo waan la ilmeeyay maxaa yeelay ilmahaneetu waa 12 jir uma eka 12 jir laakiin ilmo 12 jir ah oo ma aragtay wiil dhalinyaro ah wuxuu sameeyay experiment oo waliba waalidiinta waxa uu ogolaaday oo ilmahaas dhaleen ayaa u ogolaadeen inay sameeyaan experiment yani ku sameeyaan inay waxaan maxaa la dhahaa inay tijaabis ku sameeyaan ilmahaneetu inay uu maaragtay sheekadana ku dhici kartay in kala reerkan because qof walba wuxuu leeyahay ma ogtahay aniga ilmahayga waan tababaray ilmahayga way ka warqabaan ilmahayga way ii sheegayaan ilmahayga I trust them but still waxaa jirto wax yar oo maaragtay curiosity ah ilmaha waxa weeyaan curiosity kill the cat dhahaan gaalada ya wax yar oo waxa ku jirto oo curiosity ah in maaragtay waliba ilmaha qaarkood aad iyo aad bay dhaqso u koreen waxay tahay reasonka because shooyada qaarkood oo loo soo deynayo waxa weeyaan waaba adult magaca ingiriiskan diidanahay waxa weeyaan shooyada loogu talagalay ilmaha xoogaa da-aada ka weyn da-da yihiin ilmihii marka waxay yaqaanaan waxay tahay nin inaag waxa dhex maro waxay yaqaanaan wuxuu inuu jiro caashiq inaa wax jeclaan kartid waxaasoo dhan ay yaqaanaan subxaan allah bal way yaryar yihiin yaa baray waxaan ka hadlaya aniga waxa waaye waa kindergarten ilaa iyo grade 5 which is gabadheeda grade 5 ka tahay aan ka hadlaya bal yaa baray in oo caashiq uu jiro yaa baray yaa warkaaseeto guriga maybe yes of course aabi hooyo haddii arkayaan isjecel laakiinse badankood ma jirto aabi hooyo oo isjecel gurigooda kama imaanin waa videoyada fiirsanayaan waa cartoonka fiirsanayaan waa already waxaa maskaxdooda lagu abuuray heblaayo waa da adiga ka weyn basically storylineka ilmaha fiirsanayaan badankood waa story da-aadooda ka weyn so ilmihii marka waxyaalo badanay ogyihiin marka experimentiga haddaan ku noqdo wax yar waxaa dhacday gabdhaha oo 12 jirka ah wiil nin weyn weeyaan laakiinse ayaga wiilkii baa testing ku sameeyey can you believe it waxay sameeyeen ilmahaas yes midna baarkay ugu tagtay oo waliba waa laga warqabay because waalidkeedii aabaheed baa la joogay meesha midna gurigii maaragtay subxaan allah haddaydan arkin I'm sure bet hooyinka qaarkood badankood inay arkeen social experimentigaas la sameynay youtube-ka ka buuxa albaabkay ay ka furtay xataa can you believe it gurigeedii ayay u sheegtay waa 12 jir gurigeeda waxay ku tiraahday imo isla jeel gareyna lima ogola wiil inuu yimaado bal fiiri waxay maraysaa cunug 14 jir 15 jir camal ah maadaama ay 12 jir tahay waxay sidaa 3 sano ka weyn yahay boyfriendkaagu noqon karaa way isleeda maskaxdeedu waxa ku jirto because shooyada fiirsato way moogta gaalo way dadkana ka hadlayo bad saasi tahay gaali gaala la'aan badda ku jirto aaba ama hooyo u ogal inay wiil ay gurigeedii ay keento ma jirto على كل حال شيكذا waxaan kugu sheegay waxay tahay inaan la socono waa ilmaheena waxay daawanayaan inaan la socono waa ilmaheena waxyaalaha ku maqlayaan waxyaalaha fiirsanayaan videoyadana la fiirsatid waaye sometimes iska dhaga tirin waxyaalaha qaarkood markaan maqashid waa inaad ka hadashaa you have the discussion waa inaad sameyno waaye markaan maqashid inta qaylin lahayd waqdin lahayd waxa wanaagsan inaad ma aragtay markaaseeto waa teaching moment weeyaan marka waxyaalaha qaarkood aad ka maqashay caruurta ama video fiirsanay ha ahaado ama cartoon fiirsanay ha ahaado ama wax ma aragtay raadiyaha ama wuxuu ahaado adiga waxa daawanaysid oo ma aragtay caruurtaada maqleen haday tahay ha ku noqoto teaching moment wax aad bari kartid ha ku noqoto markaaseeto waxa ka hadli kartid oo 10 aad ka dhigi kartid ha ku noqoto aad iyo aad bay muhiim u tahay ilmaha yaryarka ahaa maskaxda rabay laga bedelo kuwii waaweynka laga bedelo yaa storyada kale aad maqasheen storyada kale oo social media haysatay ayaamahanto dhan oo ahayd hooyo Soomaali oo tiri wadaadada ay ka hadlayaan hooyo Soomaali oo tiraahdo wiilkeedu way ka shakaday oo haddana gurigii ninkaas guursaday macalinka ahaa marweena sheekada ku soo celiyay dad sheekada maqleen social media dhan ka buuxda culimada dhan haddana way ka hadlaysaa mar Ilaahay subxaanahu wa ta'ala caruurta noo dhowr kulligeen meel ba adduunka joogno please hadda hooyo Soomaali tahay ilmahaaga ka warqab
ilmahaaga la sheekayso. annaga hadda haddii aan nahay Somali community oo qurbaha joogto way nagu yartahay in ma aragtay topic aan si xoog leh uga hadalno because waa topic aad u culus. waa topic lagu soo attack gareynayo haddaa ka hadashid. runtaa idiin sheegayaa beri hore 2018 2019 waan ka hadlay laakiinse anigaas naftikeyda la hadlayo attack videodaas qaarkood waan ka dejiyay channelkayga just because waxa lagu soo sameeyay attack. so dadkaan ahoo dadkan ku xiran dadkan Soomaalida afkoodana fahmayo oo daawadaan waa shaydaamo naftirkoodii. marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala naga qabto. intaan video kusoo gabagabeynaya jazakallahu khayran daawanaysay fadlan like isaar videoga isi share garay insha Allah waxaan rajeynayaa intaan ka jari kara ma aragtay intaan title-ka xataa kuma soo qoray hopefully ma aragtay in dadkaas Ilaahay subxaanahu wa ta'aala iga qabto. khayr idin rajeynaya. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. waa inoo videoga dambe. bye.